kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo ku baaqay shir degdeg oo ka dhaca dhuusamareeb 1 ilaa 3 Febraayo go'aankan ayaa soo baxay markii wakiilada beesha caalamku ay ku cadaadiyeen madaxda Soomaalidu inay xal degdeg ka gaaraan muranka doorashada in ka badan 200,000 oo qof oo ka cararay colaado ka dhashay doorashadii ka dhacday Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe imaaraadka oo dhalasho siinaya maalgashadayaasha iyo dadka xirfadleyda ah ee dalkaasi ka shaqeysta qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilownay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan looga hadlay arrimaha doorashada waxay la qaateen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa labada dhinac uga doodeen arrimaha cakiran ee ku gadaaman qaabka loo qabanayo doorashada Soomaaliya iyadoo wax ka yar 10 maalmood ay ka dhiman yihiin muddo xileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa goor dhaweed qoraal uu soo saaray waxa uu madaxda maamulada iyo gobolka Banaadir ugu yeeray in shir wada tashiya oo degdeg ka soo qayb galaan kaasi oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb 1 ilaa 3 bisha Febraayo shirka Dhuusamareeb ayaa Farmaajo ku sheegay inuu saldhig u yahay heshiiskii 17 Sebtembar sanadkii 2020 laga gaaray hanaanka doorashooyinka kulanka maanta dhex maray wakiilada beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo ayaa ila madax banaan waxay VOA u sheegeen in wakiilada caalamku iyo madaxweyne Farmaajo u gudbiyeen fariin ah in uu hogaamin muujiyo oo xal degdeg ah loo helo muranka isla markaasina uu aqbalo gudiyada ay soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland shirka maanta ayaa imanaya iyadoo sii kordhayo cadaadiska beesha caalamku ay saarayso dawladda iyo maamulada si loo qabto doorasho nabdoon oo lagu wada qanacsan yahay safarada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay barta Twitter ka soo dhigtay waxay madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqday in ay si degdeg u xaliyaan arrimaha la isku mari laayay iyadoo safaradu ay ku hanjabtay in aan la aqbali doonin doorasho hal dhinaca iyo doorashooyin isbarbar socda qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 200,000 oo qof ay ka carareen colaado ka dhashay doorashadii bishii December ka dhacday wadanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe militariga Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo garab ka helaya ciidamo ka kala socda qaramada midoobay Ruushka iyo Rwanda ayaa dagaal kula jira maleeshiyaad hubaysan oo diidan natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 27 bishii December taasi oo guul uu ku sheegtay madaxweyne Faustin Archange Touadera qotiga ka cararay colaada dalkaasi ayaa intooda badani u talaabay dalka dariska ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dalka Afrikada Dhexe oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 5 milyan oo ruux ayaa wadan hodan ku ah luulka dahabka iyo alwaax dagaalo sokeeye ayaa ka jiray dalkaasi tan iyo markii talada dalka xoog looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi François Bozize dawladda India ayaa maanta xirtay adeega internetka ee qaybo kamid ah caasimadda dalkaasi ee New Delhi talabadaasi oo lagu tilmaamay mid lagu carqaladeynayo beeralayda oo halkaasi ka dhigaya dibadbaxyo waxaana beeralaydu ay maanta sheegeen in ay bilaabayaan hal maalin oo cunto ka somida beeralayda India ee mudaharaadka dhigaya ayaa toddobaadkan ay marar kala duwan isku dhaceen ciidamada booliiska Delhi taasi oo keentay in hal qof uu ku dhinto qaar badanna ay ku dhaawacmaan beeralayda ayaa mudaharaadyada wada in ka badan muddo 2 bilood waxay ka cabanayaan sharci cusub ay dawladdu ku soo rogtay wax soo saarka beeraha beeralayda ayaa sheegay in qaanuunkaasi lagu naasnuujinayo shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay cuntada iibiya halka lacago badan la duldhigay wax soo saarka beeralayda saboolka ciidamo badan oo booliiska ayaa sabtida maanta la geeyay tuulada Singoho ee nawaaxiga New Delhi halkaasi oo ah goobta ugu badan ay ka socdaan banaanbaxyadu wasaaradda arrimaha gudaha India ayaa ku sifaysay jarista adeega internetka ee aaga uu ka socdo mudaharaadku mid ku meel gaar ah oo looga hortagayo suurtagalnimada rabshado ka dhasha dibadbaxyada muslimiinta Mareykanka ayaa soo dhaweeyay amarkii uu madaxweyne Joe Biden ku laalay xayiraadii saarnayd qaar ka mid ah wadamada muslimiinta wariyaha VOA Yunus Salim ayaa warbixintan diyaariyay waxaana soo jeedinaya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Sharwac
muslimiinta Mareykanka ayaa u sacabatumay amarka fulineed ee madaxweyne Joe Biden uu meesha kaga saaray xayiraadihii socdaalka ee soo rogay maamulkii hore Trump. Usama Jama waxa uu ka mid yahay kooxda u dooda muslimiinta ee ururka golaha muslimiinta Mareykanka. We were very delighted with the executive order that President Joe Biden ayaan ugu farxnay amarka fulineed ee madaxweyne Joe Biden inta uu ballan qaaday uu ku fuliyay maalintii u horeysay ee madaxtinimadiisa iyo inuu dib u celiyo xayiraadii muslimka ee madaxweyne Trump uu sameeyay 4 sano ee maamulkiisa. muslimiinta ay xayiraadahani saameeyeen ayaa sidoo kale tallaabadan soo dhaweeyay waxaana ka mid ah Abrar Umesh oo ah gabadha Mareykan asal ahaan Liibyana kuna nool waqooyiga gobolka Virginia. sidaa daraaddeed waan aamini waayay markii aan maqlay inay ajandihiisa ku jirto markii uu bilowgii tartamayay balse run ahaantii waan farxay inaan arko inuu taasi ka daba tegay. Abrar Umesh oo ku dhalatay isla markaana ku kortay Mareykanka ayaa sanadkii 2019 loo doortay guddida sare ee dugsiga degmada Fairfax. And that honestly even made me feel kind of like a second class citizen. taasi xaqiiqatan waxa iga dhigtay inaan dareemo sidii muwaadin dabaqada labaada halka ay dhammaan saaxiibada iyo dadka aanu isku filka nahay ay fursad u haysteen inay la farxaan qoyskooda iyo qaraabadooda xilliga feestooyinka ay u tagayeen si ay u booqdaan kulamada gaarka ah haddii ay noqoto qalin jabin ama meher amaba ilmo u dhasho. Liibiya ayaa ahayd mid ka mid ah dalalkii madaxweyne Trump uu ku daray liiska xayiraadda socdaalka amar fulineed oo saxeexay bishii January ee sanadkii 2017 halka wadamada kale ee liiskaasi ku jiraan ay kala ahaayeen Iran, Iraq, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo weliba Yemen. maamulkii Trump ayaa sheegay in amarkan uu gacan ka geystay inuu Mareykanka ka ilaaliyo halista dadka ka imanaya dalalka amni darrada weyn ay ka jirto. maalintii sii horeysay xafiiska ayaa madaxweyne Joe Biden uu meesha kaga saaray tallaabadaasi isagoo sheegay inay ahayd bar ku taalla haybadda qaranka iyo soo dhaweynta Mareykanka ee muddada dheer dhaqanka u ahayd inuu soo dhaweeyo dadka soo galootiga ah. kooxda muslimiinta u dooda ayaa sheegay inay taageersan yihiin qorshaha Biden uu wax kaga bedelayo socdaalka. And American Muslims will support immigration reform that will. waan fahmay inaynu u baahannahay dib u habeyn socdaalka muslimiinta Mareykankuna dib u habeyntaasi way taageeri doonaan taasoo kobcin doonta jidka naloo soo dhaweeyo jidka aanu ku keenno isla markaana soo galootiga uu ogolaanaya inay yimaadaan dalkan. madaxweyne Joe Biden ayaa ku ololeeyay isla markaana ku ballan qaaday inuu qaadayo xayiraadda socdaalka isla markaana uu meel marinayo dib u habeyn socdaalka ah oo dhammaystiran. ugu dambeyntiina dowladda Imaaraadka Carabta ayaa soo saartay sharci u ogolaanaya inay dhalashada dalkaasi siiso maalgashadayaasha iyo dadka xirfadleyda ah oo ay ku jiraan dhaqaatiirta, saynis yahanada iyo weliba qoysaskooda. amiirka magaalada Dubai ahna madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ayaa war uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in dadka la siin doono dhalashada Imaaraadka ay soo magacaabi doonaan golaha wasiirada isu taga Imaaraadka Carabta, maxkamadda gudaha iyo golayaasha fulinta ee magaalooyinka. amiirka ayaa sheegay in sharcigan cusub uu ogolaanayo dadka la siiyo dhalashada in ay sii haysan doonaan baasaboorka dalka ay ka soo jeedaan. weli ma kala cadda in dadka la siin doono dhalashada ay heli doonaan nidaamka daryeelka dowladda oo ah nidaam ay sanad walba dowladdu ku bixiso balaayiin dollar si muwaadiniinteeda ay u siiso waxbarasho iyo caafimaad bilaasha iyo deymaha guryaha. nidaamkaasi ayaa waxaa ka faa'iideysta 1,400,000 oo qof oo ah guud ahaan shacabka Imaaraadka Carabta. haatan haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo maalmahan liiqliiqanaysay loogana cabsanayay inayba ku noqoto xilli ciyaareedkan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska ayaa goor dhaweyd kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Everton waxa ay heshay guul ay maalmahan kala caageen. Newcastle ayaa kooxda kubadda cagta ee Everton ku soo garaacday gurigeeda waxayna ku soo martay 2 gool iyo waxba ciyaaryahan Callum Wilson uu labadaasi goolba u dhaliyay. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Newcastle United Steve Bruce ayaa guushan uu ka soo gaaray magaalada Liverpool waxa ay siinaysaa in ay niyadiisa kor u qaado isla markaasina uu guushan ka dhigto mid uu higsado oo kulamada dambe kooxdu ay guulo kale ku talaabsato. Newcastle United ayaa milkiilahooda
iyo weliba taageerayaasha kooxdu in dhoweyd bay isku dhacsanaayeen iyadoo taageerayaal fara badan ay rajeynayaan in milkiiluhu kooxda iska iibiyo isla markaasina dad maalqabeenihi ay kooxda kala wareegaan. dhinaca iyo haddii aan jaleeco magaalada London, kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa waxay amaah kaga soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahan Lingard. ciyaaryahankan oo kamid ah xidigaha da'yarta ay soo barbaarsatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu Manchester u ciyaaray oo kaliya 3 kulan, laakiin waxa uu u muuqday ciyaaryahan boos ka waayay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. ciyaaryahankan Lingard ayaa waxa uu sheegay ku soo biiristiisa kooxda kubadda cagta ee West Ham United in ay niyadiisa kor u qaadi doonto isla markaasina uu fursadan labada gacanood ku qabsan doono. tababarihiisii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay in ay arintani tahay fursad isla markaasina uu rajeynayo Lingard inuu banoonigiisu horumar sameeyo uuna ku soo noqdo garoonka Old Trafford. ciyaaryahan Lingard ayaa kooxda kubadda cagta ee West Ham United wuxuu amaah kula joogi doonaa inta ka harsan xilli ciyaareedkan. wali waxaynu ku jirnaa wararka kooxda kubadda cagta ee West Ham United. ciyaaryahan Saciid bin Raxma oo kooxda kubadda cagta ee West Ham deyn ahaan kula joogay ayaa waxa ay kooxdu haatan la gaartay heshiis dheer iyadoo ciyaaryahankan kula heshiisay inay kooxda Brentford kala wareegto isla markaasina ay kooxdaasi siiso lacag gaaraysa 30 milyan oo ganiga Ingiriiska. ciyaaryahankan ayaa tan iyo sidii uu xilli ciyaareedkan ugu soo biiray kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxa uu ka dhigay garoonka ay ku ciyaarto wacdaro isla markaasina waxa uu ka mid yahay haatan xidigaha ay kooxdu ku xisaabtamayso in uu xilli ciyaareedkan meel wanaagsan gaarsiiyo. macalinka kooxda kubadda cagta West Ham United David Moyes ayaa u muuqda macalin kooxdan boorka ka jafay isla markaasina wadadii guulaha cagta u saaray. wahagaag daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijka qubanaha maanta. intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascad iyo dhammaanba bahda qubanaha VOA oo idinku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanta.